Sitaadku xaggee ayaa uu inaga yimi? Guud ahaan dadku waxa ay ku sheegaan in uu inaga yimi Yaman. kaas oo ay dadka badankiisu u badan yihiin sitaadyada iyo waxyaabaha nebi ammaanka oo aad iyo aad ugu talax tagaan. Haddaba waxa su'aal mudan Soomaalida sidee ayaa ugu yimi? Si Soomaalidu si ay ula dhaqantay. Culimadii Soomaali ee wadanka timi markii ay soo barteen cilmiga ee ka soo barteen wadanka Masar ay ku soo noqdeen wadamada Soomaalida. Waxa ay soo barteen badankoodu oo ay soo arkeen nebi ammaanka iyo sida loo ammaan. Dadku diin badan ma yaqoonin, waxyaabo badan oo imka la yaqaan lama aqoonin. Diintu aad iyo aad ayaa ay wadamada Soomaalida ugu yareed, gaar ahaan wadamada miyiga. Markaad u fiirsato Islaamii hore sidii ay sitaadka u qaadi jireen iyo erayada ay ku qaadi jireen, waxaad ka dareemaysaa in ay ahaayeen dad cilmi yar oo haddana caqiido badan. Waxa taas ku tusinaya erayadii ay oran jireen oo ay ka mid ahaayeen saddexda laga ooyaya aakhiray jiraan, aboorka oo adhiga leeg aakhiruu jiraa, abeeso awriyaal ka weyn aakhiray jirtaa, naarta olol dheer la yiri aakhiray jirtaa. waa waqti cilmi darradu ay badnayd isla markaana caabudka iyo alla ka baqu u fara badnaa.